إنسان nolosha uu nool yahay waa waqti hadduu waqtiga dhamaado noloshiisu way dhamaatay وأقولها إمامك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر كو حالس كربا قفك إنه رب نلوش هدور بإنه قوليسته تقوى الله سبحانه وتعالى إنه إلهي كعب صدق فهي وصية الأولين والآخرين تاسنا وهذا الدار كي كوي هريي يكوى الذنب يكوى هذا الجوغة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إله سبحانه وتعالى وحوليه وحانو إذن دار مي حقيقي ربأه idinka iyo kuwa idinka horeeyay inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsataan taqwa Allah wa qofka wax kasta oo looga baahan taqwa Allahna waxa way taa'atuhu fima amar wa ijtinaab ma nahaa an inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray inaad samaysid wuxuu ka reebay inaad ka reebtoonaad qofka wuxuu ku najix karaa noloshiisa inuu garto nolosha uu nool yahay maxay tahay hadaadan garanaynin meesha aad joogto najax iska badhaafay waxa tahay qof aan intana ku jirin dhexda jooga qofka bini aadanka noloshiisa marka laga hadlayo oo la leeyahay nolosha waa waqtiga aqla ma yamliku al-insan qofka waxa ugu muhiimsan uu nolosha ku leeyahay ama noloshaas uu nool yahay waxay tahay waqtigaas isaga ah maanta waxaanu joognaa zaman ay fitantuna badan tahay casru dahabina uu yahay labadiba sayfun dhu haddayn waxa ugu horeeyo oo waqtigeena lumiyay waa mobilada aan gacanta ku wadano waqtiga insaankana hadduu waqtigiisa ka lumo noloshiisa waa luntay waqtiga marka waxaa la iska rabaa wuxuu u baahan yahay in la nadaamiyo دقات قلب المرء قاتلة له إن الحياة دقائق وثواني قفك وحو إليها وحاوي سنة كوبا بلوين كوبا ساعة كوبا دقيقة كوبا سكنة كوبا انتاس أديب ليها يضناشها وكو حساب سيني نورشها ضمرك ووقتك وحا أقومي همسان أوتهي ستنا تتكال عقتها هيستا أما ما أنت وان تقني وان هرم من لله هذا wax bedeli karaa waqtiga wax ku darsan lahayn kuwana way soo hormarsan lahayn markay nolosha ka cajisaan ilaa way dilayna way soo hormarin lahayn waqtigooda kuwana way dib marin lahayn oo gadaal bay geen lahayn si ay noloshooda ugu raaxaystaan laakiin waxa waaye Fatima wixii tagay wuu tagay kuma soo laabanay waxa imaan doonana waa qayb oo waxba kuma lihid oo waxaad ka ogtahay malaha waxaad leedahay waa waxa hadda aad taagan tahay oo kaliya taas baad gacanta ku haysaa taasina hadii qoraxda ku dhacdo ma ogid inaad subaxaysan doonto hadii ay waagu ku bariyana ma ogid inaad galab gaari doonto marka waa wax aadan hubin laakiin taasaad waqti ku leedahay waxaad kaga faa'iideysan kartaa inaad tukato inaad quraan akhriso inaad umada anfacdid inaad dadka booqatid xanuunsan inaad wax walba oo khayr ah ku samaysid markaasaad ka faa'iideysan kartaa laakiin wixii tagay yaa laytay waxa ma tarto waxa imaan doonana cilmi qaybka laguma ogeysiinin marka waxaanu ka hadlayno oo guusha iyo horumarinta aanu ka hadlayno qofka waqtiga uu taagan yahay waa saacadaas aad taagan tahay baa adigu gacanta ku haysata waxa ugu horeeya la iska rabo qofka waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsado laba in uu cajiska faraha badan umadana waxa la dagay la haray waa cajiz iyo kasal labadaas iyada aan nabiga sallallahu alayhi wasallam subax kasta uu ka duceysan jiray adkaaru sabax ay ku jirtaa Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal labadaas iyada waa labada uu nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo dambigiisa kii hore iyo kii dambeeyay la dhaafay waa wuxuu ka duceysan jiray inuu Allah ku salidiyo annaga maanta waxaan lagu saliday cajiz cajiska muxuu keenay waxaanu ku noolahay riyooyin been ah waxaanu ku noolahay tamani waa hididilooyin saambaan yeelayaa kan intaan ka dhacay ta'jiil waxa hadda sameyn kartaa waxa daysa bariyan sameynaya oo bari ma bilhidbo waa imaan doonta waxaad leedahay waa waxa waqtigan hadda taagan Soomaalidu waxay leedahay hor ku sugayso hora loo galo marka waxa la iska rabo waxa waaye inaad fahanto laba hebel wuxuu ku leeyahay waxa rabaa inaad meeshaas gaaro oo waad fadhidaay waxba ma sameynaysid ficil aad ku gaaraysa waxaad rabtaa mesela inaad noqoto quraanka Ilaahay xadiiso inaad diinta baratid mesela
hooyooyinkeena oo kale dhibaatada haysto waxaa waaye iyagoo qaarkood xataa iya gaaray fartaan baranaya qur-aanka way baran markay fatxa iyo kasra iyo duma dhaafiso waxay ku leedahay waan cajisay way ka joogsan waxaan rabaa laakiin maalin inaan dhameeyo goorma waqti ku sugaya liana alwaqt laa yantadiru axad qofna ma sugo waqtiga wuu soconaya kulama tashanayo laakiin waxaad rabto inaad hadaf gaartaasna waxaa keenaysa qofka hadafkii wuu rabaa laakiin khudad ama wadadii uu ku gaari lahaa uma dagsana masalan gabadhu waxay rabtaa inay ay qur-aanka xidiso bas diintu barato laakiin maxay fiirsataa riwaayado iyo musalsalaad ummad aanu baabkaasba ku jirin bay fiirsataa ilaan qofka waxaa lala soo saaraa dadka uu jecel yahay uu ku daysado doctor maxamed alciwadi inaan jeclahay hala weydiiyey waxaa la yidhaahday hebel yuu raacsan yahay wuxuu yidhi waqtiga hore ma aanan jirin sida hadda u fududo qofka lagu ogaan karo qofka wuxuu dhahay yuu falow iyo farantis yuu leeyahay fiiriba fanaanad hebel iyo fanaan hebel baa ugu jira khadka laakiin wuxuu rabaa inuu tafsiir barto qur-aan barto waxaas waa hididiilooyin aada naftaada ugu sheekeynayso ku qancinayso ilaa naftu markaad waxba uhayni waad ku qancinaysa waxaad rabto inaad gaarto ka dhabe haddaad fursad haysataa ha sugin bari waxaad rabtaa inaad qur-aanka baratid iyo tafsiirka allahuma mustacaan dadkii saaxiibka ahaa iyo meesha laga qaato waa la yaqaanaa kuwa riwaayadaha dhigtana lagama kulmo fanaanadana lagama doonta yaa laga raadsadaa culimada quraa'da mufasiriinta aa laga doontaa laakiin waxaa adigu dadka aad saaxiibka la tahay waa dadkaasi laakiin waxaad rabtaa intana inaad niyadda nusaan aad ku haysaa taas iyada ah waa riyo been ah qof hurdo oo riyoonaynu arki jirnay annagu waxaanu riyoonaa saacadan anagoo soo jeedna adoo soo jeeda dee riyoonaysu waxaa waaye waxaad rabtaa inaad aroos hebel ka tunto fanaanad hebel markay imaado soo dhaweyso waxaadna rabtaa inaad qur-aanka baratid waxaad xamanaysaa ummadii baad baabi'isay marba guri hor laa tegi maalinkii dhan mas-uuliyaadkaadu way dayacan yihiin reerkii wuu dayacan yahay haddana waxaad rabtaa inaad saalixiinta ka mid noqoto warkaasuu dhanfacaya miya abadan calaa cashati marka ma soo baxayaan bay tira soomaalida waa halkaas oo kaleeto haddaad ka sugto meeshaas iyada ah waa mashriq iyo maqrib ood kala garan la-dahay mashriq iyo maqrib ood kala garan la-dahay waa inaad marka waxaad rabto hadafkaad rabtaa meeshaasaad rabtaa inaad gaarto qudad daji wadadii aad ku gaari lahayd u daji 3 shay unbaa lagaaga baahan yahay markaad rabto inaad waxaa samayso kow inaad ilaahay ka cabsato 2 alla ka cabsiga muxuu keenaa waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja ilaahay subxaanahu watacaala qofkii ka baqdo wuxuu u sameeyaa boos wadadii uu ku gaari lahaa buu u furaa dariiqaas oo kuu sahlan yahay waxaad kala rabtaa in aad yaa tala saaran ilaan talada yaa loo dhiibanaya allah waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh taqwo baa la imaad tawakul baa la imaad shayga waxaa waaye saddexaad alcazm inaad go-aansato go-aan inaad la imaato fa idaa cazamta fatawakal cala allah dib ha fiirin shayga afraadoo la yska rabo waxaa waaye inaad wixii ay ku dagsan yihiin meeshii aada mari lahayd waad gaaraysaa laakiin waxaad rabtaa inaad diinta barato haddana waxaad fiirsanaysaa filimaanka tacsi ilaaha wa anta tudhiru xubahu fahada maxaalu fi lqiyaasi badiicu law kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu ilaahay baad caasinaysaa laakiin waxaad leeda waan jeclahay tudhiru xubba waa meesha ugu dambeysay oo qofka uu gaaro fashal haddaad allah jeceshahay wadadii ilaahay loo maro waa taqaana muxuu kuu abuuray kow wamaa khalaqtu ljina waalinsa ilaa liyacbuduun ilaahay wuxuu kaloo ku abuuray inuu ku naxariisto ilaa man raxima rabbuk walidaalika khalaqah ilaahay wuxuu ku abuuray raxmadiisa wuu ku naxariisanaya inta joogta bini aadankee nool waxaa ugu naxariis badan hooyo laakiin hooyada naxariistaasi oo ku abuuray allah subxaanahu watacaala naxariistiisu waa midaas waraxmatii wasicat kula shay wax kasta way ka waasacsan tahay ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa waxaa kaloo qudwo inoo ah
oon kaga daysanaynaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay markuu tilmaamay muxuu yidhaahday laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim. meeshii ugu dambaysa asagana lagu tilmaamay oo sifaad wanaagsan ah, akhlaaqdiisa inaad ku dayato oo ilaahay subxaana watacaala ku ammaanay oo ku tahiray sifaadoo dhulkuu kaga soo sheekeeyey uu kusoo daray wa inaka la calaa khuluqin cadiim. nuuntaas bas uu ku tahiray wixii dhan oo laga soo sheekeeyey qur-aanka lama sheegin, laakiin aayadaasaad soo koobaysa. labadaasiyaa qudwo ku ah. kow inaad allah uga cabsadid waxaad rabtona uu yahay wax ilaahay raaligelinaya. laba inaad allah subxaana watacaala tala saaratid tawakul la imaadid. saddex inaad ilaahay subxaana watacaala aada u dhiibatid taladaada. haddaad go-aansato hore u dhaqaaq. ambiyo badan buu ilaahay soo abuuray, uu soo diray, uu ummadda usoo diray. wuxuu ambiyadaasi 5 unbuu yihi ulilcasmi, kuwii go-aanka u saaxiibka ahaa. 5taasi waxaa kamid ah nabi maxamed calayhi salaam, muusa, ciisa, nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim. 5taasuu kasoo doortay ilaahay subxaana watacaala. minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa. 5taasuu ilaahay soo doortay. wixii rusul oo tiro badnaana uu soo diray. 5taasi go-aan bay la yimaadeen. adigu go-aanka la imaam haddaa rabto inaad adduunye iyo aakhiraba guulaysato. waxa aad rabtona ha noqdo waxa ilaahay subxaana watacaala raali gelinayo.